weli casharkeena noo socdo. Ankanasios waa marka maskaxdu ay heli weyso dhiig iyo hawo ku filan, waayo maskaxda waxay maamushaa dhaqdhaqaaqa jirka aadamiga guud ahaantiis, waana muhiim in ay maskaxdu hesho dhiig iyo hawo ku filan, isla markaasna wixii dhaawac ah ee soo gaara waxay wax u dhimi karaan shaqada maskaxda. Qeybahan hore aan uga soo hadalnay, marka hadda waxaan guda galaynaa daaweynta. Casharkeena wuxuu nooga bilaabanayay markaan qeybtan waxaan ka galaynaa qeybta daaweynta. Qeybtan hore aan uga soo hadalnay clinical picture. Dareenka dhimirka oo lumo, macnaha qofka dhimirka kala lumayo markuu wax soo gaaro, dareenka dhimirka dhimaya, hadalka iyo dhaqdhaqaaqa bukaanka oo yaraada, macnaha qofka dhaqdhaqaaqiisa oo yaraada, macnaha sababtoo ah meeshii oo wax ka socayeen ay wax gaarin Soomaa. Qodobka 3, neefsiga oo yaraada, qeybaha oo jirka wax soo gaara ay wax dhaqdhaqaaqa sameeyaan, habdhigga neefsigana sidoo kale waa sidan. Qeybaha jirka ka mid yahay Soomaa sida nooca hawshiisa oo yaraaya. Qeybta 4, tabar darri. Qofkan wuxuu noqdaa qof maadaama jirka wax soo gaari waayeen, awooddii iyo dhaqdhaqaaqii uu qofku sameeyayo way yaraanayaan. Patent care wuxuu la mid yahay macnaha care daaweynti waaye. Waxay la mid tahay macnaha waxay ka kooban tahay laba qeybood. Qofku hadduu uu yahay mid aan miyir qabin, qofka hadduu miyir daboolmo oo wax soo gaaraan, waxaa laga rabaa inaad jiifisid. Shil iyo waxaas oo kale ama soo gaaraan ama dhibaato soo gaarto, waxaa loo baahan yahay inaad jiifisid oo maskaxdiisa u laab dhinaca qoorta, macnaha madaxa waxaa loo baahan yahay inaad dhinac u laabtid, macnaha garabka oo kale inaad saartid, garabkiisa oo kale inaad saartid. Hana siin wax cunno ama cabitaan. Qofku markuu marxaladaas ku jiro waxba lama siin karo. Dadka qaar waxaa arkay dhahay biyo lagu qabto, biyo la siiyo, qofka soo energy hela baar la siiyo, inta fudud la siiyo, waxaas oo lama siin karo. Maxaa qofkan isaga marxalad khatar ku jiro. Baar iyo biyo wax ma daaweeyaan, daawo la rabaa in la siiyo qofka. Qodobka 2 wuxuu leeyahay haddii uu fuuq-bax jiro, sii cabitaanka khaasatan melanka shifa ORS. Bones. Gubashada waa marka jirka aadamiga uu ku yimaado kulkiisa ka badan, macnaha jirka bini'aadamka kulul leeyahay, kuleel uu leeyahay. Difaacayaashu waxay soo deeyaan xilliga qabowga kuleel soo deeyaan,
xilliyada kuleelahana qabow ay soo dayaan oo dhiigay soo dayaan biyo soo dayaan si uu jirka u qaboojiyo maqaarka u qaboojiyo marka jirka kuleel waa leeyahay macnaha jirka kuleelka uu leeyahay kuleel ka tan badanaa laga wada macnaha isla markaasna wuxuu dhimi karaa maqaarka wuxuu dhibaato gaarsiin karaa macnaha maqaarka iyo nudayaasha jirka maqaarka iyo nudayaasha jirka uu dhibaato gaarsiin karaa sababa taxadar la'aan waxaana sababa taxadar la'aanta waxaana loo qaybiyaa 3 qaybood oo kala ah macnaha marka uu jirka dhibaatada soo gaariyo 3 qaybood oo kala qaybsami karaa marka 3 qaybood aan rabaa hadda inaan sheegno qaybta koowaad qayb saddexaadna waxyaalaha hoostagay leedahay qaybta koowaad aan ku bilaabno qaybta koowaad gubashada heerka koowaad lagu magacaabaa qaybta labaadna gubashada heerka labaad lagu magacaabaa qaybta saddexaadna gubashada heerka saddexaad lagu magacaabaa waxaana keena dab ama shay kulul macnaha waxaa keeni kara dabka ama wax dab lagu karkariyey sida biyo kulul oo kale sida bir la kululeeyo oo kale waxyaalahaas ama caag la kululeeyo tifqaayo oo kale shay kiimika ah ama shay kiimika ah iyo korontadana sidoo kale iyadana waa sababta kiimikada qaar waxay sababtaa qarax sama marka waxyaalaha qaar marka la isku daro wax khatar ah ka dhasho hadda organic chemistry markaan guda galno ka loo yaqaan nuclearka waxyaala qarxa laga keenaa Soomaa waxyaala qarxo la isku dardaray oo waxyaala khatar lagu sii giro waxaas oo dhan kiimiko ah Soomaa marka waxa ugu daranba waxay ka imaadaan kiimikada taas beddelkeedna waxay leedahay waxyaalo badan oo manaafacaad tiknoolajiyada aan arkayno iyo waxaan isticmaalno dhanba waxay ka imaadaan kiimika yaanu ku sii fogaan casharkeena aan ku sii socono gubashada heerka koowaad waa gubasho yar oo aan u baahnayn daryeel caafimaad laakiin xafaf leh macnaha meelaha qaar markay gubtaan oo zaa'id gubashada ayaan ahayn macnaha way ku xafafaysaa Soomaa xafafkaasaa la sheegaa gargaarka gubashada heerka koowaad meeshaan gargaarka gubashada heerka koowaad meeshaan waxaa ku jira 2 qodob aan ka hadli doonaa marka meesha gubatay ku dhaq biyo nadiif ah macnaha daaweyntii aan ku guda jirnaa Soomaa hore waxaan soo galnay clinic iyo waxaan soo aragnay Soomaa ilaahay kuma daray care marka qaybta daaweyntii uu ka hadlaa macnaha meesha gubatay ku dhaqa lagu dhahay biyo nadiif ah qodobka labaad ka ilaali caabuqa macnaha waxaa ka ilaaliyaa ciidoo kale jeermiska soo dhex geli karo jeermiska duulaayo qofku marka uu dhaawac soo gaaro inta meesha laga dhayo iska bax lama dhaafo Soomaa faashada lagu duubaa Soomaa faashada dayaala faashada laga bedelaa Soomaa marka faashada sababta loogu duulaa waxaa waaye jeermiskan duulaayo inuu nabarka ku degin ee meesha caabuq ay qaadin sidaas daraaddeed faashada loogu duubaa gubashada heerka labaad waa gubashada ay maqaarka biyo kashtaan una baahan daryeel caafimaad marka meeshaan wuxuu ku leeyahay
gubashada ay maqaarka biyo gashtaan oo kowdiya una baahan daryeel. Macnaha qofkan wuu gubtay waxaa lagu daaweeyaa wax daawo kale loo waayo gargaar degdeg ah loo sameeyaa macnaha waxaa la dhex geliyaa biyo caadi ah soo qofka xanuunka badan uu dareemayo si ugu qaboobo. Sidaba kuleelka waxaa cagsi ku ah Soomaan qabow. Marka kuleel yimaado waxaa lagu dambeeyaa qabow. Marka meel dab ka kaco kale waxaa lagu dambeeyaa Soomaa biyo. Marka sidaas waa macnaha meesha in biyo la dhex geliyo maadaama ay qofka kula waxaa suurtagal ah markaas marka biyo loo dhex geliyo inay meesha qabowdo ee degto oo qofka xasilooni oo dareemo macnaha xanuunka faraha badan oo ka yaraado. Saas la socdo.